بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دروستين waxbarashada ayaa inoo socotay waxaynu maraynay qaybihii af Soomaaliga aynu dadka ku barinay waanu qaybtii hordhaca ka soo sheekeynay maantana waxaynu qoraynaa xuruuftii waxaanu ka bilaabaynaa xuruufta waaweyn ee la yiraahdo shibanayaasha shibana waxa looga jeedaa kii aamusnaa oo marka xuruuftan shaqal lagu darin ee vowels aan lahayn baa la leeyahay shaqaladuna faawalada weeye oo kuwii shaqalka wax ahaa wixii wax Soomaaliga ee af Soomaaliga weeye wixii wax lagu qurxiyo lagu tahaaro waxa saaleeyada aan iska bilaabano waxa aad ku muhiim ah qoraalada waxaan u sii qori weynay qofku inay iyo macruurta la socoto sida loo qoray xarafka iyo meesha laga keenayo badanaa waxa dhacda in meel kale oo khaldan macruurta ka bilaabaan ama qofka baranayaaba marka eraygu meesha ugu fiican yahay in laga bilaabo ee loo socodsiiyo xariiqaha say isugu imanayaan taas aad u muhiim ah مثلا baa baynu qorayna xarafka ugu horeeya ah baa markii qorayno waa in sidaas loo qoraa waxyaalo muhiim ah labada line inuu xagga sarena madaxa ku hayso xagga hoosena xagga ku hayso xarfaha waaweyn oo dhan oo saa loo baro xarufta taas waa ba waxa ku xigta ta taada markii la qorayo u fiirso waxa ku xigta ja حابة كو حكتا حادو سيو قرميسو واتوغا هوشا بدان دد ولا خاده سيدا وين اسو dhaafsanta waa inaanay sida noo kala noqon oo mid saaw ciiraysa noqon ama xagga kala u ciirin ama balaas oo kala aan noqon carruuraha yar markay baranayaan ama labada laan kala gaabnaan kala dheeraan ayaa loo baahay ba ta ja ha baa leedahay intaas marka Soomaaliga bari khaaba ku xigta khaad waa laba xaraf oo wada socda weeye waa haya ka la isku daray marka labadaas baa isku kha aan sii wadno waxa ku xigta da daada waxa ku sii xigta ra marka qoraalkii aan la socda qoraalka qofka weyn la socdaa sidoo xarafku u qormayo waxa ku xigta sa waxa ku xigta sha shaaduna iyada laba xaraf weeye oo waa saada iyo hada oo la isku daray ayaa sha waxa ku sii xigta da daaduna waa da iyo hal isku daray يلا لو حرف ويان وحرف لو حرف ككوبن هذا مركز لو قري وين صار لو قرا فأقول ساعة جاء بكل حكته فاء بكل حكته arrin kaloo iyana aad u muhiim in ka warramaynaa laynkaa sare qura ayaa loo dhigaa qofka haddii aanu dee bilow yahay ba iyo ta iyo ja xa kha da dabeetana waxa weeyaan iyagaa la yidhaha hoos u qor weliba halkaas baa laynka looga jeexaa boggaa waa inuu ka buuxiyaa bejkaas oo dhan oo ba halka ku qoraa ba kale ku qoraa ba midna layna ka boodaa ba kale ba kale ba kale halkaa ta ja bogga markuu buuxiyo bogga labaad baa tan loogu bilaabaya marka la soo rogo page-ka kale saas ma quraanka marka la dhiganayo higaada sidaas baa loogu dhigayaa faabaynu marinay qaaba ku xigta qaad waa laynka hoose aan ku fadhidaa ku yiri banadi laynka hoose waa ku fadhidaa xaraf kasta ka sarana ku fadhiyaa ka hoose ku fadhiyaa كابا كو حكتا كا وحا كو حكتا لا ما با كو حكتا ما هذا قفك مركا لو قريو وان سا لوغو قرا يعني بهلها تاغن او ما هذا كلا هادو مركا لو قريو سا لو رغرغا لكن تن وانا يلتا وانا قتمداس يلتا لسو غيغينيسا قريهو كلا سقريه كله
halkaa dhexeba ku jooji maada hoos bay hageynin laakiin waxaan uga jeednaa fallaaraha la isu dhigdhiggeeniya wayna noqotaa ma na baa ku xigta naada u fiirso iyadana fallaaraha la isu geegeeniya wayna noqotaa oo sidaa u kulmaya qotimo qotimada waa inu qofku bartaa in yar baynu qurxinaynaa sug kaa marka saa loogu dhufto kaana saa loogu dhufto kaa isugu gee na waa baa ku xigta waadana sidii oo kale sidaa qoryaha u qoryadana haadana waxaynu iyaduna waxa weye xaraf kastaa waynu xagga sare haystaa waa haada labadaa markaad qorto dhexdaa ku dhufo ya-dana wakaa intaas waa xarfii waaweynaa xarfaha waaweyn marka qofka loo dhigo waxa xiga xarfa yaryar shaqalladu waa faawaladii waana kuwii kaga hadlinaya kuwan marka iyagana waxa weeyaan halkan hooseenu ku qoraynaa a baa ugu horeysa aada qofka markuu qoraya waynu saa u qoraa leemanka iyadana way ku fadhiyaan e baa ku xigta e baa ku xigta waxaa ku xigta oo oodu yaani zero noqona waxaa jira zeroga iyo oodu waxba kala duwayn oodu waa goobo saxa laakiin zerogu wuxuu weeyaan waa oodu waa ina goobo noqotaa seerka u baa leeyaha udana marka la qorayo waa saabkaa iyana saabkaa wey marka iyagoo yaryarna way jiraan laakiin imika waxaan uga jeednaa un farta waaweyn aan qofka barno kuwan marka la jiidayo marka ay laba noqdaan baa la odhanayaa oo lan faawala aadii baa laba laga dhigaya baa ku xigaysaa sida loo qorayaan u fiirsada baa ku xigaysaa idii oo laba jeer waxaa ku xigaysa dii oo laba jeera markasta halkaa wayna gaadhaabayno cagaha xarafka waa in halkaa la gaarsiiyaa uuna ku dar bas wey waaba intaasunbaa hadho af soomaaliga samaynaysa waxa kaloo meel kale laga keenayaa ma jiraan kuwana xarakaadka u dhigma iyo kuwaasoo xuruftii waaweyne hijaayiga ahayd u dhigma waxaynu ku daraynaa markaanu raacinaynaa xuruuftan iyagoo yaryar baa jira kuwan inta badan lama isticmaalo laakiin yaryarkaa la isticmaalo marka xuruuftii yaryareed baynu qoraynaa oo ba'daas dee waxaa jira ba' yar waana ba'da hadhow la isticmaalayo ba wey taasi haye ta sha'dii hoos bay u baxaysaa hadhowto xaadii sidaa ha loo qoro mar sidan loo qorana way jirtaa waa inaad labadaba barataa laakiin iminka saas baynu isaga qoraynaa marka iyagoo half line bay isticmaalaan kuwan xarfaha yaryar hadhowto qofka marka loo dhigay laynkaa waa inuu kaasir aanu ku dhawaan halkaa dhexda maraa oo qaarna hoos u baxaan half hoos u baxaan qaarna half kor u kacaan khaadii baa timi khaadii iyaduna waxa weeyaan khaadii yarayd da-dii baa timi da-da marka la qorayo waa kaa ra-dii baa timi saadii baa timi shaadii baa timi daadii waa da-dii oo haadii lagu daray caadii
قاعدة مركز القرية ماذا حاسين هذا هوس بيبحث أيضا فهذا أيضنا سيدا صار سكورنا يا قاعدة أيضا حوالي ماذا حاسر دادس كمديهن قاعدة لا سيدا صار أما سيدا أيضا كلا سكورا ما هذا ويني كورنا من أساس لو سر جيدا سيدا دقاه ayaa loo rogayaa naadana saasaa loo soo rogayaa waadana iyana saasaa loo rogayaa sida loo qoraya waa sidaa waa in la laalaabaa sidii had marka lasugu keenaya ma haadii baa timi yaadii baa tiyaadana waxa weeyaan xagga sare wakaa kuwaas markaa xuruufta buluugga ah waa xuruufta marka la yaryareeyo hadhow iyaga wax lagu qorayaa xarfaha waaweyn marka line la bilaabayo ma la isticmaalaa dad badan baa saddex dhiga wixii lama ogola xarfaha capitalka waxa weeyaan marka line bilaabayso ama magac gaara waxaas uma lagu isticmaali karaa waayo shaqaaladiina aynu iyagana qoro aadii saasa loo qorayaa aadii lineka wayna ku fadhidaa idii oodii oodii wakaa aadii baa timi laba xaba la qorayo baa timi kiun baa laba laga dhigayaa iidii haye oodii baa timi laynkaa hoose wayna ku fadhiyaa laynkaa hoose waa inagini haye uu baa timi wakaa waaba dhanta dasinaga dhanta qofkana waa in loo akriyaa ba hal ba un baan isticmaalanaa ba iyo ta markaynu xaggeeni u noqono baadaas baadii carabida u dhigantaa waa ba tana waa taadii tanjiimkii u dhigantaa xaadii weeye waa khaadii waa daalkii daal kaan dhibicda lahayn tanna waxay noqonaysaa raa bay noqonaysaa tanna waxay noqonaysaa siinka oo waa sa shaa markay nahana waa shiinkii dhaadu waxa weeyaan dhaadaa ka bood caadaas waa cayn gaadaa inta badan qayn baa lagu isticmaalaa faadaas waa faadaynu garanayna fa qaadaas waa qaafkii kan waa kaafkii هي لامكي وميم ونون واو بنقنيا ها بنقنيسا يا بنقنيسا هي كون شغلada hana taas xooyaan tan fadxiyo oo kale noqonaysa tan kasriyo bay noqonaysa tan labadan ma dhexe ma laha carabidu taasina waa damihi marka koona dambateen ma noqonayaane waxay noqonayaan xaraf la jiido xuruuf mid soo gelsa halka waa isku yar khilaafayaan intaas baynu deynaa insha Allah taala maanta duruusta hore higaada ah iyo kuwa dambena qofkii ay ka yaran doontaa waxa weeyaan hala soo xiriiro channelka YouTube-ka Adam Islamic Channel Adam Islamic Channel halka telefoonada waad ka helaysaa qofkii u baahda higaada quraanka iyo carabiga iyo wixii waa laga helayaa haddaad doonto Google-ka aad gelinaysaa higaada quraanka iyada ku soo baxaysa 7 maalmood baa qofka quraanka ku bartaa higaada oo dhan baa ku jirta waxa ku jirta carabiga qaybo kale carabiya waxa ku jira qaybo kale oo maxaa tahay iyaguna skills kale ku jira waxaas oo dhan baa laga helayaa halka marka la soo xiriira emailada ku qoriyo telefoonada iyo waxa bugaagtana PDF baa idin ku soo diray qofkii doonaya wax barto insha Allah ta'ala halka ka soo xiriiro wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh